munaasabadan oo ahayd mid loogu magac daray isdhexgalka bulshada ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda ku-meel gaarka Soomaaliya oo ka mid ahaa madaxweynaha dowladda ku-meel gaarka mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo waliba gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur Tarsan. waxaa sidoo kale munaasabada ka soo qayb galay gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir, fanaaniin, ciidamada baanbeyda iyo shacabka kala yimid 16 degmo ee gobolka Banaadir. ugu horeyn waxaa ka hadlay munaasabada gudoomiyaha degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir Maxamed Cali Axmed, waxaana uu sheegay inay sameeyeen diiwaangelin ay uga gol yihiin in la fududeeyo sidii lagu sugi lahaa ammaanka, asigoo tibaaxay inay diyaar u yihiin maamulka degmada Xamar Jajab inay ka qayb qaataan howlaha ammaanka. waxaan had iyo jeer annaga maamulkeena u taaganahay habeen iyo maalin sidaan uga shaqaynahay nabadgelyada, horumarka degmada, mataqaanaa waxbarashada, nadaafadda. 450 haween ayaa nadaafadda ka shaqeeya. oo subax daayina u soo istaaga sidii mataqaanaa ay nadaafadda u shaqay lahaayeen ayagoo ku shaqeeya iskaa wax u qabso. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo isna ka hadlay munaasabada ayaa sheegay in shacabku ay go'aan gaareen diyaarna ay u yihiin inay soo ceshadaan ammaankooda, wuxuuna intaa ku daray in dadka degmada Xamar Jajab ay tahay degmo qadiimi ah isla markaana lagu yaqaano ammaanka iyo nabadda. xaafadani waa xaafad qadiim ah, waa xaafad Soomaalinimada iyo midnimada calaamo waa midnimada ummadda Soomaaliyeed. xaafad waa weyn, waa xaafad, waa degmo uusan hal qabiil sheegan karin ama se ummadoo dhan ay isugu timid oo ay dhab ka tahay in la soo celiyo nabaddii. waddankani 21 sano ayuu kooma ku jiray. fikirkan madaxweynaha ee isdhexgalka waxaa hadalka soo xiray madaxweynaha dowladda ku-meel gaarka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo halkaasi ka jeediyay hadallo u muuqanayay guubaabo iyo dardaaran kuwa ku wajahnaa shacabka, waxaana uu ku macneeyay isdhexgalka bulshada. isdhexgalka bulshada macnihiisu wuxuu yahay bulsho iskaashanaysa oo wada qabsanaysa oo ka shaqaynaysa horumar iyo nabad. bulsho uu isu furan yahay albaabkeeda iyo qalbigeedu. bulsho iscaawinaysa oo isgacan qabanaysa oo midka gaajaysan oo u soo gurmanayo midka waxaysta. bulsho isbooqanaysa oo midka caafimaad daran dadku ay booqanayaan ay u dadaalayaan. bulsho aan faquuq lahayn oo siman oo ku siman sharaf iyo karaamo. bulsho ka turjumaysa midnimadeeda inay ka midaysan tahay wax walbo, ay ka midaysan tahay xagga nasabka, ka midaysan tahay xagga diinta, ka midaysan xagga luqadda, ka midaysan xagga fikirka iyo aragtida. nicmooyinka ilaahayna siiyeyna ka mid tahay waa inaan ku fara adeegnaa. marka aan ka bayrno midnimada waxaan la kulannaa dhibaatooyin. fanaaniinta Muqdisho waa mahadsan yihiin. kalimaad kooban ayay ku cabireen macnaha ay samaynayso midnimada.
muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa degmooyinka magaalada muqdisho lagu qabanayay munaasabado noocaani ah kuwa oo loogu talagalay isdhexgalka bulshada.